kulan ay soo agaasimeen mas'uuliyiinta gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa kulankaas oo isugu jiray tababar iyo wacyigelin oo bulshada lagaga wacyigelinayay xanuunka coronavirus oo farabaas ku haya guud ahaan caalamka ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Maroodi Jeex kulankaasi waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed duqa caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamuud Ciidiid Solteeko iyo sidoo kale saraakiil ka socday wasaaradda caafimaadka Somaliland iyo sidoo kale hay'adda u diyaar garowga aafooyinka dabiiciga iyo kaydka iyo raashinka markuu soo dhamaaday kulankan isugu jiray tababarka iyo wacyigelinta ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka waxaanu ka warbixiyay muhiimadda uu kulankani leeyahay dhankooda waxa hadallada iska daba qaatay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo duqa caasimada Hargeysa waxaanay ka hadleen ujeedka kulankani qodobo badan baa halkan lagaga hadlay qodobada waxaan filayaa inay cid walba cidiisii tababari doonto imka wixii ka dambeeyana kulamada waynu yareynayna shacbigana waxaan u soo jeedinaynaa in kulamada aan macquulka ahayn ee unnecessary-ga sida mafshiyada la isugu yimaado meelaha aan macquulka ahayn la isugu yimaado meelada la buunbuuniyay waxa laga yaabaa 10 qof 20 qof inay ku filayeen laakiin 100 qof marka la isugu yeero iyo 200 qof iyo ay noqonayso waxyaabo badan tababarkii halka la idku siiyay inaa uga sii faa'iideyn doontaan qolo waliba qoladii ka dambeysay dawladdu wixii loojiga dhaqaalaheena weyn is ognahay wixii loojiga haday iskaashatooyinka noqoto haday dadka noqoto wixii loojiga dawladdu qaban karayso way qabanaysaa maanta waxaan isugu keenyaynay inaan ku baraarujino dhammaan iskaashatooyinka kala duwan waxa halkan jooga iskaashatadii basasleyda ee gobolka Maroodi Jeex waxa jooga iskaashatadii khudradleyda waxa jooga iskaashatadii hiliblayda waxa jooga iskaashatadii roodhida waxa jooga ururkii iskaashatada farmasiyada iskaashatooyin badan baa halkan fadhiya intaasiba waa inta ay khusayso runtii inay ka diyaar garoobaan hawshan waxa loo baahan yahay inaynu ka diyaar garowno ilaahay nagu ma keenay haddii xanuunkaasi yimaado inayna qayb ka noqonin faafitaankiisa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa dad muslimiin inaanu ilaahayna soo gaarsiinin tababaradan waynu sii wadaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan isku daynaa iskaashatooyinka iskaashata walba inaanu meesheeda kula kulanno iskaashatada khudradda kuwa roodhida kuwa basaska kuwa hiliblayaasha haddii ilaahay ka dhigo waynu dadaalaynaa anaguna xukuumad ahaan gobol iyo degmaba waan iskaashanaynaa waxaan isku daynaa inaynu sanitationka magaalada kor u qaadno oo meelaha qashinka la dhigo iyo meelaha sida inantaasi ay sheegaysay uskaga lagu shubo waxaa soo dhan haddii ilaahay ka dhigo inaynu kor u qaadno nadaafadda magaalada aynu ilaalino waxa iyaguna muhiim ah hadday dhacdo oo qof xanuunka looga shakiyo hadduu soo raaco baska ama baabuurta dadweynuhu qaado uu soo raaco wuxuu qayb ka noqonayaa inuu fidiyo xanuunkii marka waxa loo baahan yahay inuu la soo xidhiidho numberka 928 oo isbitaalka guuda waxa kale oo iyagana aanu samayn doonaa nambaro badan oo shirkadaha isgaarsiinta aan ka codsan doono inay layman badan oo furan oo waliba aan mashquulin kuwa aan busy garoobin marka la soo garaaco in la dhigo isbitaalka ururka farmasiyada waxaanu ka codsanaynaa waxa la sheegayaa in agabkii loo isticmaalayay in badan ay dalka ka baxday wixii ay hayaan inay ku fara adeegaan oo bulshada ay ka iibiyaan dalka aan dibadda looga saarin laakiin wixii dalka ka baxaya ina aad iyo aad uga feejigaataan waayo lacag yaro waxa la inaga iibsaday waxba inoo tari mayso waxa la sheegayaa in wadamo badan oo caalamka xanuunkan uu haleelay uu ka go'ay agabkan sida waxyaabaha gamca la marinayay antibacteriyada ahaa golofyadii oo imka maanta loo sheegayay in farmasiyada laga ururinayo Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa